kulanti wacan wanaagsan daawadayaal idil ahaantiin meel kasta oo aad daafaha caalamka aad ka joogtaan halkan waa qaranka TV1 waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay Soomaalida ee caalamka ah ee channelkeena qaranka TV1 qodobada aad kaga bogan doontaan warkeennan waxaa ka mid ah xog la xiriirta sirdoonka Soomaaliya oo baaris ku bilaabay musharax la tuhumayo inay wadato Kenya Axmed Madoobe oo u fududeynayo inuu ka mid noqdo baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka oo shaaciyay guddiga qabanqaabada qabashada doorashada guddoonka guddigaasi xilli la eriyay guddoomiyihii guddigaasi galmudug oo diyaarisay ciidamo fara badan oo loogu talagalay in ay fuliyaan howlgal gaar ah oo qorsheysan oo deegaanada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee galmudug si toos ah uga bilaaban doono qodobada wixii kaloo dheeri ah inagu soo kordho inta aynu ku guda jirno baahinta warka qaranka TV1 ayaan idinku soo gudbin doonaa haddii aad nagu cusubtiin subscribe inoo saara oo ka mid noqdo saaxiibada ku xiran wararka warbixinada muuqaalada haddii jeersida joogtadana halkan aynu soo baahino noqo daawadaha ugu horeeya ee la xogaha wararkeena daawade qodob walba warkan ka mid aragtidaada ayaad ka soo dhiiban kartaa qaybta hoose commentiga inoogu reeb waa tahay inuu ku bilaabno hay-adaha sirdoonka Soomaaliya ayaa baaris ku bilaabay musharax la tuunsan yahay in Kenya ay wadato xilli Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobana uu u ballan qaaday inuu ka mid noqon doono baarlamaanka 11aad ee golaha shacabka xubintan la tuhumayo in Kenya xiriir ay la leedahay warar aad u xasaasi ah oo ku saabsan doorashada iyo tartanka adag ee musharaxiinta ay qaar daaha gadaashiisa ka taagan yihiin dowladda shisheeye ayaa ka soo ifbaxay magaalada Kismaayo ee deegaanada Jubbaland ila wareedyo dhaxalgal ah kana tirsan mas'uuliyiinta federaalka iyo Jubbaland ayaa warbaahinta u sheegay in guddiga amniga doorashooyinka iyo laanta dambi baarista ah ee CID-da ay ku raad joogaan xubin la tuhunsan yahay inuu la shaqeeyo sirdoonka Kenya una taagan yahay kursi ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya xogta ayaa lagu sheegay in Cumar Ibraahim Xaashi oo Kismaayo u tagay in lagu soo doorto lagu bilaabo baaritaankaasi hoose waxaase dad badan oo arrintan la socda ay rajabeel ay ka muujiyeen in natiijo sax ah la heli karo iyaga oo u sababeeyay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo wacad ku maray in shakhsigan uu soo saari doono Cumar Ibraahim ayaa warbixin dhawaanahanba soo baxayay waxa ay qayb ka ahayd in uu muddo ka tirsanaa basaaska Kenya Muqdishona uu u joogay arrimadan u ah dowladda sheegatay qayb ka mid ah badda Soomaaliya welina uu damac uga jiro saraakiisha iyo mas'uuliyiinta warkan la wadaagay meediyaha ama warbaahinta waxay intaas ay ku dareen in guuxa ka jira doorashada kursigan uu u taagan yahay Cumar Ibraahim beesha iska leh odayaal ka socda ayuu Axmed Madoobe toos ugu sheegay in cid aan isaga ahayn loo ogolaan doonin ergooyinka qaar ee kursigan waxaa la tilmaamay in durbaba la sii reebay hanaanka diyaar garowga waxaana dhankooda laga soo xigtay in ay walwal ka qabaan soo saarista Cumar oo ay iyagu rumaysan yihiin in uu danaha Kenya u matalayo maalmaha soo socda ayaa la filayaa inay soo baxaan fadqaladooyin badan xilli toos mar kale loo gudagalay dhamaystirka doorashada golaha shacabka baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya guuxa kuraasta ilaa iyo hadda waxa ugu horeeya xogta lagu shaaciyay in Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe uu kursiga beeldan ay leedahay u xiray una ballan qaaday Cumar Ibraahim oo sirdoonka Kenya ka tirsan waxaana isha lagu hayaa habka natiijada ay u soo saari doonaan guddiga doorashooyinka ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo xubnaha markan ku howlan in ay baaristan si rasmi ah natiijo lagu kalsoonaan karo ay kaga soo saaraan si kastaba ha ahaatee waxaa markaa ka dambeysa ay soo taraya in Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe uu hirgelinayo aragtida ku saleysan in Kenya ay matalaad ku yeelato baarlamaanka 11aad ee golaha shacabka ee Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya iyadoo dhowr jeer hore laga digay guddiga xalinta khilaafaadka ayaa shaaca ka qaaday inay magacaabeen guddi qabanqaabiya doorashada shirguddoonka guddigaasi xilli la eriyay guddoomiyihii guddiga xalinta khilaafaadka gudoomiye ku-xigeenka guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka heer federaal Maxamed Ibraahim Barre ayaa magacaabay guddiga qabanqaabada doorashada guddoomiyaha guddigaasi
guddiga qabanqaabada doorashada gudoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ayaa ka kooban 5 xubnood kuwaas oo looga baahan yahay inay si degdeg ah u gudagalaan sidii loo dooran lahaa gudoomiyaha guddiga. dhowaan ayaa waxaa la doortay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka kadib markii xilka laga qaaday gudoomiyihii hore ee guddigaasi Maxamed Xasan Ciro. haddaba guddigan uu magacaabay gudoomiye ku-xigeenka guddiga xalinta khilaafaadka heer federaal ayaa waxaa laga warsugayaa in si degdeg ah ay kusoo gabagabeeyaan qabsoomidda doorashadan inay qabtaan. guddigan ayaase looga fadhiyaa in toddobaadkan gudihiisa ay diiwaangeliyaan xubnaha u tartamaya gudoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka. loolan adag oo dhinaca siyaasadda Soomaaliya ayaa durba laga dareemayaa, waxaase markan abaabul xoogan muujinaya xubnihii looga adkaaday inay helaan gudoomiyaha guddiga xalinta gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal oo dhowaan loolan adag loo galay. markan haddii aynu eegnana Galmudug waxa ay diyaarisay ciidamo fara badan oo loogu talagalay inay fuliyaan howlgal gaar ah oo qorsheysan. waxaana Galmudug ay shaaca ka qaaday in qorshahan dhowaan si rasmi ah loo shaacin doono. madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug Cali Daahir Ciid oo safar howleed ku jooga degmada Caabud Waaq ee waqooyiga gobolka Galgaduud ayaa tababar ciidan u soo xiray cutubyo ka tirsan ciidanka daraawiishta dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug. munaasabadan oo ka dhacday xarunta madaxtooyada laanta Caabud Waaq ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xubno ka tirsan golayaasha Galmudug iyo maamulka degmada, iyadoo ciidamada ay soo bandhigeen xeeladihii iyo xirfadihii dagaal ee la baray inta tababarkan uu soconayay. madaxweyne ku-xigeenka oo munaasabada ka hadlay ayaa u mahadceliyay cid kasta oo gacan ka geysatay tababarada ciidamadan, waxa uuna ciidamada kula dardaarmay inay si wanaagsan u gutaan waajibaadka qaran ee loo igmaday. ciidamo ka tirsan kuwa daraawiishta Galmudug oo tababar loogu soo xiray degmada Caabud Waaq ayaa waxaa la filayaa in dhowaan ay howlgal ka dhanaa ururka Al-Shabaab ay ka fulin doonaan deegaano iyo degmooyin ku yaala waqooyiga gobolka Galgaduud. madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Soomaaliyeed Cali Daahir Ciid ayaa sheegay in ciidankan loo diyaariyay qorshe la xiriira fulinta howlgallo gaar ah oo ay ka fulin doonaan deegaano iyo degmooyin ka tirsan dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug oo uu sheegay in ciidankan helistooda ay baahi weyn ay u qabeen. saraakiisha ciidankan ayaa dhankooda ka mahadceliyay tababarkan muddada socday ee ay qaateen iyo macallimiintii bixinaya cashiradan, waxayna sheegeen in dalkooda ay ugu adeegi doonaan waxyaabihii ay barteen, diyaarna ay u yihiin inay ka qayb qaataan halganka la xiriira xaqiijinta amniga guud ee deegaanada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug. madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi wafdi hogaaminayo ayaa gaaray magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia kadib casuumaad madaxweynaha maamulkaas uu ka helay ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed. Muuse Biixi Cabdi ayaa socdaalkan waxa uu noqonayaa socdaalkii labaad uu ku gaaro magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia tan iyo markii talada dalka Ethiopia loo doortay mar kale ra'iisul wasaaraha dalkaasi Dr. Abiy Ahmed. Abiy ayaa casuumaad rasmi ah u soo diray Muuse Biixi Cabdi, waxa uu kala hadli doonaa arrimo la xiriira ganacsiga iyo xiriirka kala dhexeeya xukuumadda maamulka Somaliland, waxaana si gaar ah ay diiradda u wada saari doonaan horumarinta arrimaha la xiriira saamiga Ethiopia ku leedahay dekedda weyn ee magaalada Berbera oo ay gacanta ku hayso hay-ad laga leeyahay dalka Sultanka Imaaraadka Carabta oo la yiraahdo DP World. wararka ayaa waxa intaas ay ku darayaan in Muuse Biixi Cabdi sidoo kale lagala hadli doono inuusan marnaba martigelinin qorsho la doonayo in lagu dumiyo dowladnimada Soomaaliya oo Imaaraadka Carabta ay ka wadaan geeska Afrika. waxaana Muuse Biixi Cabdi uu kulan toos ah ula qaadan doonaa ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed iyaga oo ka wada hadli doona arrimo dhowr ah. madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa socdaalkiisa dalka Ethiopia waxa uu ku soo aadiyaa xilli xukuumadda Somaliland ay dhowr jeer oo horey siyaabo kala duwan ay uga hadleen dagaalka waqooyiga Ethiopia uu kula galay Abiy Ahmed kooxda TPLF. waxaana Somaliland ay sheegeen in mowqifkooda dagaalkaas uu cad yahay, isla markaana
ay ka xun yihiin wax halkaas ka soconaya iyagoo ku baaqay dhowr jeer hore wada hadallo in lagu soo gabagabeeyo xiisada ka taagan dalka Ethiopia. saaxiibayaal daawadayaal wararkii ugu dambeeyay Soomaalida ee caalamka ah ee channelkeena qaranka TV1 aad ka daawaneyseen waa inaga intaad ku mahadsantiin daawashada warka midkiisa xiga inta intuu ku kulmi doona qeeray waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.